muuqaal 48 saacadood la soo dhaafay isla wadaagay baraha bulshada isla markaana ay isla wadaagayeen dadweynaha ku dhaqan dunida isla markaana lagu sheegay inuu yahay muuqaalkaasi mid laga duubay gudaha diyaaradda Ethiopian Airlines ee dhacday ayaa waxa muuqaalkaasi lagu tilmaamay mid waxba kama jiraan haddaba shakhsigii duubay isagu muuqaalkaasi oo ah fly ay lahayd diyaaradda Ethiopian Airlines yaro hore u dhacday isla markaana lagu magacaabo Cabdirashiid Muumin oo kamid ah aqoonyaha ka degan dalka Canada ayaa waxa weydiiyay su'aal ahayd bal hadda waqtigaasi uu duubay muuqaalka marxaladdu sida ahayd iyo weliba xaaladda waqtigaasi uu duubayay Cabdirashiid bal xaaladda waqtigaasi sida ahayd diyaaradana waxay ka timid Addis Ababa waxay ku socotay Toronto markaan soo duulnay bisha 4teeda ahayd habeenkii 12kii diyaaradda markay kacday ayaa markaan sii dul mareyno wadanka Suudaan ay 2 saac sii socotay ayaa arrintan dhacday diyaaraddu way qalqul baa gashay waxa soo dhacay automatically waxa isfuraya oxygen-ta uu soo dhacay pilotka interfere sameeyay wuxuu yiri hal la gashto oxygen-ta qof walba oxygen-ta ayuu sanka saartay caruurtii oo hin iyo buuq iyo dadkii wada naxay oo nin walba indhaha taagayo ayaa waxa igu soo dhacday in aan telefoonkayga jeebka ku jiro telefoonkayga la soo baxay video aan ka duubay gabdhihii hostesska oo meesha ka shaqeynaya ayaa waxay bilaabeen hore gadaal inay u cararaan markaan arkay in ay hore gadaal u cararayaan marka hore waan naxay kadib waa istajiyay markaas telefoonkii aan ku duubay waxaan dhacday diyaaradii hoos ayaa loo soo dejiyay pilotka hadana markale uu soo galay wuxuu yiri iska fura hadda waa okay waxaan u maleynaynay in ay sameyn doonto landing oo Suudaan ah ayaa hadana gabdhihii baa waxay bilaabeen raashin baa waqtiga cashada la cunayay cashadii bay waxay bilaabeen inay alaabti aruuriyaan meel walba qashinka ayay ku daadiyeen ma aysan deganeen gabdhaha markay waxa sameynayaan oo sababtoo ah aad ay u cararayeen cararkooda ayaa naxdin dadkii argagax gelisay kadib pilotkii hadana mar labaad lagu soo laabtay wuxuu yiri waxaan tageynaa Addis Ababa sidii baan ku noqonay Addis Ababa ay ku noqotay diyaaradii baan ka soo bedelay mid kale cusub ayaa soo qaaday sidaas arrinta diyaaradda ay ku dhacday oo diyaaraddaas tii dhacday maaha diyaaradana waxay ahayd 787 Dreamliner ma aysan ahayn 737 Cabdirashiid mar haddii muuqaalkaasi la duubay uu yahay mid been abuur ah maxaad kula talin lahayd dadka iyagu caadaysteen muuqaaladaasi hore ama kuwa aan jirin ay la wadaagaan bulshada maxay tahay taladaada ugu dambaysa dadkii soo geliyay baraha waxaan uga digayaa hubsiimo hal baa la siistaa marka qofka marka hore in la hubiyo video xaguu ka yimid yaa soo geliyay goormay ahayd waqtiga diyaaradda dhacaysana maaskiga iyo afka waqtiga lagu gashtay iyo timekaas ma dhacayso waxa waa diyaaradda dhacaysa dadku way qaylan lahaayeen diyaarad dhacid u socota maysa ahayn dadku waxaan dhihi lahaa inay ka hubsadaan waxa ay baahinayaan iyo meelaha ay ka soo qaateen iyo wixii ku qornaa markooda intaada videoga aan soo qaadan fiiri waxa kor ooga qoran walaalkay baa soo geliyay videoga Facebook hadal buuna kor ku qoray hadalka ku qornaa dadka ma aysan fiirine videogu bay qaateen marka waa sidaa way arrinta waxaan kaga dhigi lahaa in ay ka digtoonaadaan waxa ay sameynayaan iyo iska hubsadaan waxa meesha ka soo qaateen waxa uu yahay iyo qofkii nool in la yiraahdo waa dhintay waa laga fiican yahay ayaa xidhay ayaa kansalay inay mamnuucay diyaaradda Boeing isticmaalkeeda iyo waliba inay marto hawadeeda waxa wadamada goor dhaweyd ku soo biiray wadanka Ingiriiska sidoo kalena waxa hore u mamnuucay wadamada China Singapore oo hawadeeda u diiday Ethiopia lafteeduna way ka dayrinaysaa bal haddaba xogta warkaas waxa inoo hayay Xasan Sheekh Umar hay'adda duulista hawada ee Britain ee magaceeda